sheekh gabadh qof halkan wuxuu leeyahay qof dumar ah su'aash soo qorto waxay leedahay waxaan ahay hooyo carruur yar yar haysta hooyadayna uma tegi karo mayna sheegin duruufaha ugu tegi kari weyday iyo wixii la midka ayadna ima imanayso hadday sidaa ku dhimato maxaan ahay macaasi baan ahay habaarkeeda midugu dhici iyo wixii la midka falyatafadal baarak allah fiik bismillahi rahmaani rahiim waalidka waxa laazima ama kala maqnaada ama wada jooge inuu raali yahay oo uusan waxba ka qabin maqnaantaada inta haddii la helo inta la doonayo waa inta haddii uu dayacan yahay oo cid kaloo haysa aan la haynin tegitaankaagu laazim buu markaa noqonayaa laakiin haddii waalidkii cid kala hayso ama isagiiba awood leeyahay oo uusan u baahnayn cid haysa maqnaanta aad ka maqan tahayna uu raali ka yahay waxba ka qabin wax dhiba ma laha ama adugu reer lahow ama halahaaneen muhiimadda waxa weeyaan waalidkii inuu raali yahay inuu sidaas ku qanacsan yahay inuusan wax dhiba ka qabin haddii ay timaado waalidku inuu ku baahan yahay ilmana marka aad leedahay waxay u baahan tahay in la iswaafajiyo ilmihii iyo xuquuqdii ninka iyo waalidkii xaqiisii meesha marka waxa iimaanaysa xaaladaha noocaas oo kale in loo baahan yahay ragga dumarka qabaayay in ay fahmaan xaaladda noocaas oo kale markay xaaska ku timaado oo waalidkeed dhiban yahay ayadana u baahan yahay in uu fududeeyo si waalidkiina loo xanaanayn lahaa ducana looga heli lahaa ilaan ducadu xaaskiisii iyo gurigiisii iyo carruurtiisii bay saamaynaysaa isaga laftiisay ku soo noqonaysaa inuusan noqonin macangago uusan dhihinuun aniga halkaa ii fadhi ma dhaqaaqi kartid warta ma dhaqaaqi kartid ma ahee adiguba waalidkaa hadduu xaaladdaasoo kale la soo daristo maxaad samayn lahayd sida aad waalidka uga daqan lahayd bay iyaduna waalidkaad uga danqanaysaa marka waxay u baahan tahay duruufaha noocaas oo kale inay raggu qadariyaan oo waalidkii la isla xanaaneeyo oo gabadha loo fududeeyo ama waalidka in la keeno ama waalidkii loo tago waa hadduusan ka maarmaynin ilmaha inuu u tago hadduu ka maarmi karana markaasi dhib ma laha raallina sidaa ku yahay wallahu aclam ninkaas su-aashiisa saan u fahmay hadday tahay wuxuu leeyahay marka culimmadu maxay uga hadli waayeen waxyaalaha qaarkood oo dhaca saas culimmada saasaa la leeyahay buu yidhi anugu ma garanayo wax maaragtay dhaca oo dadka muslimiinta ah ama bilaadilislaam ama diinteenna dhiba oo xadgudub ku ah oo culimmadu aysan ka hadlin oo ay ka gaabiyaan wax allaale diintan runtii difaaceeda ma garanaysaa ee ximaayada waxaa loo xilsaara culimmada loo xilsaara marka sheekhaan insha allahu tacala su-aasha u gudbinayaa sidaas ninka uu yidhi sheekh maxaa ka jira culimmada kama hadlaan dhacdooyinka dhaca oo caalam alislaami ka dhaca hadda masalat alqudus oo kale aan ka soo qaadno waad ogtihiin 2 asbuuc ku dhowaad caalam alislaami khaasatan masaajidda iyo manaabirta iyo dadka culimmada iyo dadka mufakkiriinta iyo dadka waxgaradka iyo dadka xukaamta waxay ka hadlayeen waa masalada marka sheekhan ku wareejinayna fadlan bismillah hayla tahay waxa dunida ka dhaca waa kala nooc dadka bar waxay iska jecel yihiin wixii meel farka ka taagaba in laga daba taago wax saxana ilama muuqato wax saxahay waxa weeyaan islaamka wax ka mid ah inaan la qarin islaamku inuu noqdo cidii rumaynaysaana cambayina ay u rumeeyaan cidii ka gaaloobaysaana cambayina ay uga gaaloobaan hadday mushkiladii timaado oo nin caalim oo la garanaya uu ka hadlay kama laazimayso in dhammaantood culimada kale oo dhamina ka hadlaan مثلا مسألة تمي شبلي بها هضلي محمود انت كلا هدا يسكا مصناته وحبا شيء ميسو واي مسألة دي حجدي اوك قصب ما هين دمان توضاي مدحككو أصلك وحويا وين دادكان لا دسو ومحال لغا دسيا بني آدم كوين موازين لسيو ميزان وحق يا باطل كوكا لا غرتو
laba qadiyadood baa kala jira shubhada radinteeda iyo xaqa garashadiisa waxa horeeya xaqa garashadiisa qofku hadduu miisaan u haysto maxaa baatila macaha xaqa uu ku kala garan karo waa wax fudud ay shubha timaada uu ka qanci karaa haddii si aanu haysanin muwaasiintii rasmiga ahayd dee shubahaadku maalin walba kunbaa soo baxa shayaatiintu maalin walba intaasoo cusub ay alifaan shubha uun lama wadayo warkeed ee waxaa asaloo culammada inay diinta bayaaniyaan dadkana u dhigaan waanan isleeyahay in badanoo ka mida waa la qabtaa wax laga gaabiya haddii jirtana dee in la isku boorriyan weeyaan wallahu aclam wuxuu leeyahay qofkan waxaan ahaa qof labadiisii waalid caasi ku ah intay dhinteen kadib baan waxaan dareemay cuqubadii maxaa ila gudboon hadda cuqubadii haddii kugu dhacday waatina hadda ka warramaynay nin Soomaaliya yimid ma muddo ka soo wareegtay wuxuu igu yidhi niyow nin af xun baan ahaan jiray oo waalidkay ku afceliya dhallinyaraan ahaa buuhi waagaas ilaahay wuxuu qadaray buu yidhi afkaygii inuu uray buu yidhi afkii baa ii uray buu su'aashii weydiinaya waxay tahay masaajidda markaan imaadoon dadka la tukanayo dadkii sidii ruux basal cunay oo kale agtayda ma istaagi karaan si kasta haddaa waxyaalaha udgiya xataa isticmaalo afkii waa soo uraya sheekhu maxaan sameeya jamaacaadkii ma isaga tagaa asagu markaa wuxuu rumaysan yahay waalidkuu ku afcelin jiray oo ku af adkaa baa laga soo gaadhay oo afkani la uray marka waa amthilada waalidka cuqubadiisu ma daahdo sida nabiga hore u tilmaamay sallallahu alayhi wasallam waxay markaa u baahan tahay inaad ilaahay u toobad keento dambi dhaaf weydiisato marka labaadna waalidkaan nool hadduu nool yahay inaad cafi weydiisato hadday dhinteenna sidaan hadda tilmaannay inaad u dadaasho u sadaqayso xajido cumrayso sadaqa u bixiso u ducayso wahaakada yani dadkii ehelkii dadka isjeclaan jireen xidhiidhiso waalid dhintay sidii baari loogu noqon lahaa tan soo tilmaannay weeye taasaa lagaaga baahan yahay hadday nool yihiinna waa inaad lugaha qabsato ood gundaha qabsato oo ay ku cafiyaan oo ku saamaxaan nacam masaladan waa masalo fiqi ah marka beec iyo shiro bay ku saabsan tahay waxaan ka hormarinaynaa haddii su'aalo mawduuceenna ku saabsan haddii jiraan nacam fadal shareecada islaamiga ahi kow horta sharciga islaamiga markaynu idhaahno sharca la dabaqay macnaheedu ma aha jinaayaadka iska badhba waxay u haystaan axkaamil jinaayaat shanafara haddii la dabaqona in islaamkii la dabaqay haddaan la dabaqinna inaan islaamkii laga tegay islaamnimadu waa ballaadhanta islaamka o dhan aan qaadanna marka hore waa mid marka ay timaaddo axkaamta ayaa xaq u leh inay dabaqdo dee maamulkaa u leh haddii kale aynu idhaahno qof waliba ha dabaqo dee ninba ninka ku xiga hadduu intuu gacanta ka jiro yidhaahdo tuug buu ahaa socon mayso wuxuu u baahan yahay nidaam de sharci oo maxkamad loo ijraa'aat loo qofkan isdifaaci karo xuquuqdiisii uu heli karo sharci lagu xukumi karo taana dee waa system inuu jiro xukunka marka lagu furiyo inaan qaadigaysna madaxa laga goynaynin de dawlad iyo system tahay wax kale dantaad mid iska soo qabato tiraada qisaas baan ku fuliyey adna reerkooda ay kugu fuliyaan mid kaloo baatila dee waxba iyana socon mayso idan axkaam markay timaado maamulo bulsho ka dhaxaysa dee waa wixii laga rabay inay dawladda iyo systemku fuliyaan maamulkay u taallaa maamullada qaarna waaba iska daciif oo u malayn maayo xuduuddaaye waxyaabo ka fudud baa looga taaglaayay fuliya midna ogsoonow tuulo yaroo gaari dunidan islaam ma fulin karto haddaan caalamulislaam oo dhammi bislaanin inta ugu badan isku xidhmin cunaqabatayn debad ka timaad iyo dagaal debad ka yimaadaba aanay iska difaaci karin waxba sheegi mayso intaad tuulo qabsato 5 qof gacanta aad goysid dabeetana dawladda ku qabsato kaloo gaala ahi waxba xukum fulintaasi ma aha masaakiintun baad meel kale ka sii tuurtay marka asalku wuxuu yahay waa in la helaa systemkii sharcigan difaaci lahaa bilyan iyo dheeraadkan muslimka ee dunida ku nooli waa inay kitaabkooda difaaci karaan wallahu aclam
su-aasha kale xigta wuxuu leeyahay waa qof dumaran rajaynaya tahay zawjkaygu waa nin aad u mucaamalo xun labadayda waalid waliba khaasatan habdhaqankooda wuxuuna amrahayaan ayaga labadii waalid inaan zawjkan iskaga fogaado oon maaragtay aan kala tagno qofkii dumarka maxay arrinkaa samaynaysaa waalidka ma amray waalidku amray meesha waxaa imaanaysa mas'alo la yidhaahdo xaaska xaqa ninkeeda iyo xaqa waalidka keebaa weyn hadday isqabtaan oo iswaafaqi waayaan oo ay noqoto qasab in midkood la ilaaliyo keebaa mudnaanta leh axaadiidta nebiga waxaa laga qaadanayaa xaqa ninka ayaa mudnaanta leh markay labada xaq isku dhacaan masaalix kalaa la fiirinayaa sidaas daraaddeed waa inay isku daydo gurigeedii iyo ninkeeda iyo ilmaheeda inaysan dumin xuquuqdii ninkana gudato isla markaana waalidiintii inta tabarteeda ah inay baari u noqoto inay iswaafajiso waa inay isku daydo ninkana sii horan tilmaannay weeye waa nooc runtii aan fiicnayn oo aad u xun in aad gaadhsiiso xaaskaaga heer ay laba khiyaar ay hor yimaadaan ma waalidkaabaad u xilataa mise ninkaagaad u xilataa adaa loo baahan yahay adaa odayka reerkii saan tilmaannayba ducada xaaskaagu ay hesho gurigaagaa ku barakoobaya waalidkan laga ducaysanayo xaaskii iyo gurigii buu saamayn ilmihii ay dhashay bay ducadu gaadhaysaa wax adigiiba dani kuugu jirto inaad gabadha ku cadaadiso sax maaha bal waalidiinta xaaska waxaa loo baahan yahay inaad uga danqato sidaad waalidka uga danqanaysoo kale oo aad noqoto ruux xis iyo dareen leh nacam bismillah ninkan su'aal buu ku soo qoray ingiriisi does a muslim allow to attend non-muslim burial qof muslima ma ka qaybgeli karaa aas qof aan muslim ahayn la aasayo jinaase caadiya oo haddaan wax sharciga khilaafsanay aanu jirin dhib uma arko jazaak allahu khayr su-aasha kale ku soo xigta wuxuu leeyahay qofkan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waalidkii ma u shafaaco qaadaya qiyaamada ama hooyadii ama labadii waalidba ma u shafaaco qaadaya qiyaamada fii saxiixi muslim waxaa ku yaalla kitaabka labaad ee axaadiista ugu weyn bukhaari baa kow ah muslim baa laba ah saxiix muslimka waxaa ku yaalla in nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi asagoo socoto ah oo maka iyo madiine dhexdooda jidkaa haya qabriga hooyadii meeshaasuu ku yaallaa jidkii uu hayay saxaabadu la socday waa leexday nebigu sal alla alay slam qabrigiibuu ku leexday qabrigii markuu ku leexday oo dul tegey nebigu waa ooyey sal alla alay wasalam waa hooyadii qabrigeeda waa ooyey nebigu sal alla alay wasalam markuu ooyey kadibna saxaabadii la socotayna waa ka oohiyey way la ooyeen markay arkeen nebiga ooyaya sal alla alay wasalam markaasaa nebigu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi rabbigay baa waxaan weydiistay inaan qabriga hooyaday siyaartoon booqdo waa ii oggolaaday buu yidhi waxaan weydiistay inaan u duceeyo inuu ilaahay u dembi dhaafo waa ii diiday buu yidhi halkaa waxaa ku soo degtay aayadda qur-aankae rabbi leeyahay maa kaana lilnabiyi waaladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurbaa min bacdi ma tabayana lahum annahum asxaabu aljaxiim nebi iyo dad mu'miniina midna uma bannaana in ay dad gaalo ah oo gaalnimo ku dhintay inay ilaahay dembidhaaf u weydiiyaan oo ilaahay u dembidhaaf dhahaan nebina uma bannaana cid kale warkiisa iska baddaa markii loo diida nebiga hooyadii inuu ilaahay u dembidhaaf yidhaahdo markaasuu nebigu ooyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh naxdin yacni danqasho uu hooyadii u danqanayo salawaatu rabbi wasalamu caleyh marka rabbi wuxuu ku yidhi maya leanna waxaa jira
waxyaalo masaa'il waxa jirta aan gelin baa jirta ma gasho ruuxan mar hadduu gaalnimo ku dhinto yaa ilaahu nabi dhalo nabi mu aabba u ahaado nabi hooyadii mu noqdo marba hadduu gaalnimo ku dhinto khalaas nabigeena keliyana ma aha salawaatu rabbi wasalaamu calayh nabi ibraahim khaliilur rahmaan anbiyada nabi maxamed baa ugu fadli badan nabi ibraahim baa ku xiga nabi ibraahim aabihi aazar yaa soo quraanku ma sheegin inuu gaalnimo ku dhintay nabi ibraahim waxa lagu yiri aabbaha ilaahay dambi dhaaf uma weydiin kartid Soomaaliyeed ballanqaad hore uu siiyeyna quraanku waa ka hadlay maalinta qiyaamadana waxa la keeni doonaa aabbihi oo dhurwaa inta loo eekaysiiyay baashi ahayay miyaa inta badaxay minjaha la qabtaa naarta lagu tuuraya wal iyadu billah wa nabiyullaahi ibraahim aabihi laana gaalnimo ku dhintay aazar quraanka sheegay nabi nuux wiilkiisi aaway ya soo suuratul huud lagama sheekay inay biihi qaadeen oo gaalnimo ku dhintay oo nabi nuux markuu yiri rabbiyow innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq rabbi wiilkaygu ehelkaygiibu kamid ahaa ballanqaadna waad siisay ballantaaduna xaq weey see wax u jiraan rabbiyow markuu weydiiyay waxa lagu yiri innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih bale wiilka waa dashay laakiin ehelkaagii ballanqaadka aan ku siinay kamid ma maxay ilaa nin dhaqan xun la yimid waa gaalnimo la yimid raali aw bale Soomaali marka wax weeye nabi baa dhalay iyo nabi bay isdaleen iyo nabi baa maartay aabba uu ahaa iyo nabi baa hooyo uu ahayd ilaahay warka ma yaqaan warkaasi wuxuu socon karaa markii mabda iimaanka la isugu yimaado wada rumeeyaan Soomaali markay wada rumeeyaan oo iimaan la helo ama gaalnimo hadii lagu dhinto bas waay nabi luut iyo nabi nuux xasaskoodii soo quraanka warramay ya wadaraba Allahu mathalan lilladheena kafaru imra'ata nuuhin ya وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين لما النبي باقبي فخانتوهما قالي نقدين فلم يغنيا عنهما من الله شيء وحويروا ترواية نبي نوح يا نبي لوط لوضوا دي حاس وحوا ترواية نار كما بدبادين كرا وقيل ادخل النار مع الداخلين نار تقال لي لوضي حاس القرآن محو نو شيغي ابي نبي طلي ولا عذابي wiil nabi dhalay oo la cadaabay xaasas nabi qabeen oo la cadaabay sooma hadii marka nabigeenu inoo sheego hooyadii in la yiri ilaahay dambi dhaaf uma weydiin kartid ma hayna nidhaahno ma nabi maxamed yaa war ma nabi maxamed ilaahay agtiisa waa ku weyn laakiin waxa jirta waxyaalo aan isbedelin baa jira ilaahay agtiisa iyo la laabna marna aan gali karin lagana shafeeci karin lagama shafeeci karin masaladu haday gaalnimo timaado iyo shirki lagu dhintay iimaan la'aan ma galayso markaas ilaahay agtiisa tabaaraka wa taala waa saasu ilaahay u xukumay waa istithnaana male naartu ruuxu gali waana ku waaraya wallahu a'lam daan korodin maqashin su'aasha ninka walaalka uu weydiiyay taqriiban waxaad silaada waxay xiriir la leedahay ama calaaqa la leedahay mawduuca sheekhu uu ka hadlayay wuxuu yiri tabliiqa jamaacada tabliiq la yiraahdo waxa masaajida in ay ka hadlaan maxaa loogu diiday marka sheekh Mustafa annahu kullaytaba masaajidkeena dad intay noo yimaadeen aan u diidnay ma jiro sheekh markuu ka hadlana kelimad baracsan doona insha Allah taala fadal sheekh waxaan u malaynayaa horta wixii de maamulka ku saabsan maamulada masaajidda la weydiiyay hadday jirto maamulada masaajidda u diidan qofku hadduu diin sheegayo xaqna uu sheegayo in loo diida maaha qofka isna raba inuu wax sheegaa waa inuu iska hubiyaa waxa uu sheegaya inay diinta ka mid tahay مثلا حديث بات sheegaysa aday nabiga caynka yiri mana oranin waa ceeb inta dadka soo taagto
nebi maxamed waxaanu odhanin inaad tidhahdo calayhi salaatu wasalaam nebigaa waxaa yidhi idan hadduu qofku waxa uu sheegayo wuxuu iska soo hubiyey ay tay maalan tabliiqaad sheegtay hadday riyaadu saalixiinka axaadiista ku qoran sheegaan qur-aanna sheegaan dadkana ilaahay ka baqa yidhaahdaan wax loogu diida garan maayo anugu dee axaadiis saxa ay sheegaan laazim maaha qofka wax sheegaya inuu wax walba yaqaano laakiin waxa laazima waxa uu sheegaya wuxuu garanayo aakhiro uu ku badbaadaya inay tahay waxaanad garanaynuuna isku sheegi oo intaad riyo ka bilowdo iyo meelaha kan waxaan jirin ha sheegin laakiin waxaad sheegtaa maxay wax diina oo saxa haddaad sheegayso in lagu diido maaha wallahu aclam بسم الله كسينا شيخ سبحانه افترضنا waxaan idin sheegayaa Sheikh Abdul Aziz bin Baz kitaab la yiraahdo at-tabliq ma lahum wa ma alayhim ayuu wuxuu sameeyay muqaddima aniga akhriyay kitaabkaana hayn jir la kadu meel uga aadama qan waa iga dhumay sheekha marka wuxuu yiri nimankaas tabliiq la yiraahdo wixii ay ku toosan yihiinna ha lagala tacaawuno waxay ku qaldan yihiinna ha loo naseexeeyo masaajidana ayaan loo diidin mawjada waxay ku qaldan yihiinna ha loo naseexeeyo wixii ay ku asiibaanna ha lagala tacaawuno ha loogu kaalmeeyo mawjada marka tabliiqu naftiisana waa tafaa'ul waa kala duwan yahay nimankan tabliiqu hadda ka yimaada urdun iyo falastiin iyo khaliijka meelaha qaarkood sacuudiga iyo kuwait iyo niman tabliiqa oo culumaa oo runtii maaragtay xagga caqiidadooda ay fiican tahay baa noo yimaada mararka qaarkood marka masaajid bay yaqaanaan oo ay aadaan annaga nooma yimaadaan nama soo maraan laakiin tabliiq runtii waxaa jira niman xagga caqiidada runtii maaragtay khuraafa iyo waxyaalo badan iyo axaadiis ma garanaysaa daciifa iyo khaasatan ragga Asiaanka oo Asia ka imaanay India Bangladesh iyo Pakistan kuwa naftooda haddii wax wanaagsan sheegayaan annagu waxa waaye fatwada Sheikh bin Baz baan qaadanaynaa marka runtii xaalad dadka muslimiinta ay marayaan dadka muslimiinta maanta waa in la jamciyaa waa in la aruuriyaa mawjada dadka muslimiinta waa in la mideeyaa wax badan bay runtii heshiis ku yihiin wax isku khilaafsan wax yar waa نعم فضل شيخ su-aasha wuxuu leeyahay qisadii Jurayj hooyadii markay u dhawaaqday salaad buu ku jiray Soomaa kadib markuu salaada gudaheedii hooyadii la hadli waayay bay habaartay marka salaada anagu ku jirna haday maamadu noo dhawaaqdo ma heebaan dhahayno su'aashu waa saas jawaabtu waxa weeye salaadu waa laba salaadu haday waajib tahay maya salaadu haday waajib tahay la hadli maysida salaada dhamaysan salaada aad ku jirta haday sunno tahay oo salaad sunna hooyo ku yeedho waa inaad heed tiraahdo salaadana ka baxdo ma la fahmo Jurayj marka wuxuu tukanayay salaad sunna abu tukanayay saas daradeed baa al-Imam an-Nawawi alayhi rahmatullah sahih muslimka abwaabtu u sameeyay markuu baabaynay macnahaas uu baabayay marka wax weeyaan salaada sunnada ah waxa ka mudan waalidka daacadiisa laana daacada waalidku waa waajib salaada aad ku jirtana waa sunno iyo waajibna waajib ah horeeyo wallahu a'lam sheekha su'aasha uu yiri warka murtidiisa waxa weeye kitaabkii Allah subhanahu wa ta'ala soo dejiyay waa yaala waa kan masaajidka meel kasta saaran dadka muslimiinta maxaa ku dhacay kitaabkii maxay ugu dhaqmi laayeen u tabaqi laayeen waa anaga sheekha weydiinaya fadal bismillah su'aashii hore wali haddaan in ku daro xaqa iyo qofku iskuma xidhna gaalku hadduu xaq sheego waa la qaadanayaa qof muslima ka kaalay gaalku hadduu xaqa sheego waa la qaadanayaa xadiiskii Abu Hurayre
shaytaankii ama jinkii xadayay sadaqa loo dhiibay Abu Hurayra nabigu u dhiibay deetana habeenkii baa mid jini u yimaadayo uu xadaa Abu Hurayra qabtay isagoo mala soo tashakulayde waa qabtay wuxuu caruur yaban ka imid dad baahan oo kaas iska cafi iska sii daay ilaahay baa nabi maxamed u soo waxyooday alayhi salaatu wasalaam dabeetana subaxii buu nabigu wuxuu weydiiyay Abu Hurayra warninkii xalayta muxuu ku yiri wuxuu yiri ilaahay rasuulkiisiiyo waxbuu xadayo markan qabtayna waan baahan iska kaydaa buu dhawaan cafi baan buu ku sheegay uu soo noqonayaa buu nabigu ku yiri Abu Hurayra habeenkii dambe waa u diyaar garoobay haddana kiyo dhusdhuslay ma habeenkii dambe waa qabtay sidii buu haddana u calaacala war iska kaysiidaa buu yiri dad baahan iyo caynkan baan ka imo jilacsanay waa iska sii daayay Abu Hurayra waa naxariista subaxii ayuu yimi saxaabada naxariistooda aad arkaysaa tuug weeyaan ka uu sii daydeynaya ayuu u yimi wuxuu nabigu ku yiri xalayta muxuu yiri xalayna saas igu yiri buu yiri nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri been buu ku sheegay uu soo noqon doona habeen saddexaadkii buu qabtay habeen saddexaadkii markuu qabtay ayuu yiri siida war waadigi beenta akhrinayay caawa cilman ku baraya qaada buu yiri siida sheeg buu yiri wuxuu ayad kursiga haddaad habeenkii akhrisato shaydaan iyo jibanba ku soo dhawaan maaya waxoogaa cilmiga abu sheegay waa shaydaankii waxadayay dabeetana uu sii daayay subaxii buu nabigu ku yiri alayhi salaatu wasalaam ma faala saahibuk muxuu sameeyey saaxibka muxuu yeelay wuxuu yiri ilaahay rasuulkiisiiyo wuxuu xalay ta sheegay war cilman ku barayay sii daa buu yidho ii sheeg baan idho intaasuu ii sheegay aad kursiga haddaad akhrido jibanka ayaa waxaasi waxba kaa qaadmaya sadaqaka wa huwa kadhub buu nabigu yiri run buu kuu sheegay isagoo beenaala ah idan haddii shaydaan cilmi laga qaatay ciddii kale cilmi sheegaysa hadduu cilmigu sax yahay meeshu doonaha ka yimaada waa la qaadanaya cilmigu hadduu sax yahay oo alliya rasuulu kuu dhowaynayo waa la qaadanaya sheekhan su-aashiisii waxay ahayd haddii islaamnimadii la googoynayo muslimiintu xaggay ku maqan tahay dearmay muslimiintuba qayb ka yihiin kuwa googoynaya ama maamuladooda ha noqdaan ama innaga iyo qabaa'ilkeenna ha noqotee innagu islaamnimo ma ku wada dhaqannaa haddaynu daacad noqonno islaamnimada ku dhaqanno wuu dhowrsoomaya kitaabkani cid difaacdana wuu helaya laakiin haddii aynan inagu isku dhaqaynin ee aynu barako u haysanno marka la dhintaa un baynu wadaadka u yeedhnaa iyo kitaabka qur-aan ah in laga barakaysto ficlan baraka wuu yihi laakiin marka la rabo in la ismaamulo isaga waa la ilaabaa dadkii difaaci lahaa waa muslimiinta hadday muslimiintu iimaankoodu uu xoogoobana ilaahayna wuu u gargaarayana kitaabkan way difaaci haddii se iimaanku uu sii daciifayo oo qofkuba naftiisii iyo shahwaadkiisii uu ka xoog badnaan kari waayo waa adagtay inuu diin kalena difaaco inta aan ogahay wallahu aclam bismillah su'aashan ayadu waa sheekh waa English wuxuu leeyahay University of Islam means what caalamiyat al-Islam caalamiyat al-Islam macnaheedu muxuu yahay أنا شمولية دي تقريبا سادس دينتي أنا هاد ليوردن هدادي فهمي كروي دي ساعات تلو شن مريد ما كوكو فهم سين كرايا ساشو أتاس الإسلام كوا يونيفرسال معناه هدو حويان كو بشر كودن بالله سودة شيء انت انه مساعد الله دينو دانا يا أهل الكتاب يقولوا أهل الكتاب الكلمة تشوغو أهل الكتاب حاجة سيتشوغان وين يجوا صاني دانا قرآن كم سأهل كتاب الله هضليه انتين لك مساعد ضد يا أهل الكتاب اللي ما إنك أسكو آخر إنما مساعد الكتاب كيروشكنا كوي إلهي إله هذا يمين وقارسيني بس إنك أنت مساعد خاصتك حدا نسكون أنا يا أهل الكتاب بإلهي إذن كتابك قرآني البشر الإنسان مش الدنيا بهالشوكة بلو سودتشي
waxaanay saaran tahay mas-uuliyaddu inay gaadhsiiyaan dadka muslimiinta ah. kaasi waa mid, waa universal dhanka marka laga eego basharka iyo nawciyaadkiisa oo dhan, jinsi gaari ma leh, carabi ma leh, ee waa ajnaasta bini aadamka oo dhan noocu doonaba ha noqdee. marka laga eego xagga waqti gaara ma ahayn, oo cahdigii nebi maxamed iyo wakhtigaana inuu sax ahaa iminkana aan la qaadan karaynin sax maaha, ee waa inuu universal yahay ilaa qiyaami saaca in loogu talagalay inuu jiri karo ama uu noqon karo wax lagu dhaqmo oo lagu noolaado. idan inaha iyo intii ka horraysay wixii aan sheegayba waxay tilmaamayaan in loogu talagalay caalamka dhammaantii, lilcaalamiina nadiiran inuu noqdo ayaa loogu talagalay. wallahu aclam. su-aasha ugu dambaysa qofka wuxuu leeyahay waan xanuunsanahay, waxaan rabaa in lii duceeyo, hooyada dhimatana in loo duceeyo. intaasaan kusoo gabagabaynayna insha allahu tabaaraka wa tacaala. baaraka allahu fiikum. allah caafiyo. amiin. isaga iyo inta jiran baa allah caafiyo. isaga iyo inta jiran baa allah caafiyo. caafimaad degdeg allah siiyo. waalidiinta iyo duqayda iyo inta dhibanba dhibaatada allah ka qaado. inta dhimatayna allah u naxariisto. ilaahayna tabaaraka wa tacaala inugu anfaco waxaan maqalay. هذا بالله التوفيق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله.